بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صالح ويه waxaan hore u ballan qaaday toobigyo dhowra inaan ka hadli doono. toobigan maanta wuxuu ku saabsan yahay waa toobig runtii xasaasi ah. inaan igu raacin baa dhici karta waxaan ka hadli doono. toobigaas wuxuu ay ila tahay inuu muhiim u yahay deganaanshaha waxbarashada caruurta Soomaalida ee qurbaha degan. waxaan ka hadli doonaa caruuraha bedelada badan lagu ku dhacaan ama iskuullada ama magaalooyinka ama wadanada dhibta u geysan karto waxbarashadooda. waxaa la yidhahdaa marka hoos laga soo bilaabo waxaa lagu taliyay haddaad iminka ka soo qaad magaalaad degan tahay iskuul baad xaafad kalaad guri ka heshay basicaan kasoo bilaabay caruurtaadu maasha allah iskuul bay ku dhiganayaan last 5 years. waalid waxaan kula taliyaa qolay anigu please caruurta ha bedelin. waa magaalo dhexdeeda laba magaalo ma waayo haddaad caruurta bedesho iskuulkay tegayaan iskuulka ilmaha ku dhigto already macallimiintu ilmaha way yaqaaniin. macallimiintu waxay yaqaaniin ilmahaas abilitygiisa yaqaaniin awoodiisa yaqaaniin akhlaaqdiisa yaqaaniin. macallimiintu waxay xiriir fiican la samaystay caruurtu waxay xiriir fiican la samaystay. xisaabta hadduu ku liito macallin baa loo qabanaya loo saaraya waxaa la odhanayaa levelkiisa la soo gaarsiiyo. englishka hadduu ku liito readingka ama writingka ama macallin baa loo xilsaaraya. hadduu low ability uu yahay program baa loo samaynayaa oo half term half year yearly ah. qof og yahay laakiin markaad iskuul kala geyso zero kasoo bilaabaya lama oga xaaladiisa. taas waa mid. waxaa kaloo ka mid ah ilmaha markuu yeertani soo gaaro hadda kii stage 4 iyo kiiban ka hadlaya yani kasoo qaad 10 iyo 11 way saaran yihiin waa package waaye. ha dhaqaajin ilmaha insha allah waayo labadaas sano waa 2 sano isku xiran. hadduu meel kale u guuro ama magaalo kale u guuro ama iskuul kale tago syllabuskii baa isbedelaya. waxaa laga yaabaa authority imtixaanada kala duwan yihiin oo ilmahaas dhib badan kala kulmo. waxaa kaloo ka mid ah ilmaha isagoo yarta iyo 11 ah magaalo kale loo transfer geliyo reerku guuraan. waxaa kaloo ka mid ah ilmo 16 jir ah oo ama 15 jir ah oo garanaysaay wadamada Yurub jooga la soo rarayo. iskuul wuu heli doonaa laakiin way u sug weyseen inuu ka soo qaadanayo shahaadadii muhiimka ah ka soo qaad inuu ilmahaasi degan yahay Norway ama Sweden ama Denmark. suga GCSE ta soo qaato shahaado u dhiganta UK anaga GCSE baa la yidhahdaa. taas waa mid. taa haddaan ka hadlay marka waa blogga hore oo ku saabsan wadamada Yurub xataa dhibtay keenayso ilmuhu. haddii ilmo Dutch ee keeni lahaa haddaa UK keento GCSE galo u dhacaya ilmaha sheeko kuma jiro waayo contextka waxa lagu qoran yihiin oo imtixaanka lagu qalayo waa Ingiriis. ilmihii khas iskuul kaliya ka fikirin ilmahayga intaasuu jiraa shahaadadaas ma helaya halkaa haddaan tago meeqay ku qaadanaysaa ilmihii ma adaa go-aanka u gaaray niijabaa ku dhacaya wuu iska aamusaya. hadhow buu ku oranayaa anigu Jarmalka ee baan keeni lahaa anigu Oslo ee baan keeni lahaa anigu Stockholm ee baan keeni lahaa anigu Den Haag ee baan keeni lahaa laakiin halkan baan keenay iyo baan keenay. waalidkii waa soo raray waxbarashadii kama fikirin. hadhow waxaan oran doonaa Yurub meel fiican maaha caruurtii baa ku wareertay. do we know that waaliga taas waa mid. taa meel igu qabo. taa marka waxaan raacinayaa Soomaaliya waxaan naqaanay year 8 oo muhiim ah. waxaa ku xiga form 4 oo ah sanadkii secondaryga dhamaadka ah. labadaa marba waxaan tusaale idin rabaa inaan iswaafajiyo halkaan iyo xagga ah. labadaa marba imtixaana la qaadaya muhiim ah oo la socotaan
qofka Soomaaliya yareed ka bixi jiray wuxuu aadi jiray caafimaadka, wuxuu aadi jiray hay'adaha kale, wuxuu aadi jiray koorso kale ama shaqo tagi jiray waa la socotaan. qofka secondary ka baxana waa la socotaan isagu level kale jaamacad aadi jiray. waddan kasta waxaan shaqo ku jirin annaga 16 jir bay kaga baxaan GCSE baa la yiraahdaa 18 kana A level bay kaga baxaan. waxaan shaqo ku jirin waddan kasta aad joogtaan dadka dhageysan doono inuu jiro imtixaan u dhigmay imtixaanada ka hadlayo. please and please ilmahaaga imtixaanada u soo dhow ama hal sano uga dhiman yihiin ama diyaarinaya dhaqaajin. imtixaanka ha fariisto wuxuu rabaa keeno. adigana hadhow qiil ka dhigan aniga luqada noqon baa la geeyey aniga imtixaankii baa laga kaxay. taas waa socodka Yurub iyo magaalooyinkan ku noolnahay. laakiin bointigayga hadda mainka ay waa kan soo socdaa. muxuu yahay waan sheegay horaan waxaan u sheegay inagu dadka Soomaalidu dadkeena waaweyn boorsooyinkii baa inoo xirxiran. Soomaaliyaan ku noqonaynaa last 10 years. bacdaba marka boorsadii kuu xirxirnayd adiga mentally aanan settle ahayn, mentally aad joogtay Africa, physically aad Yurub joogtay, waxba kuma aha one day inaad rarto carruurta wayn dhacdaana. waa taas the point. already adiga mar horaa guurtay carruurta kuma oga. mar horaad guurtay carruurta war kuma hayaan. maalin baa sugaysaa markaasaa waxaa ku xiga ilmihii oo dhigtay year 5 year 7 year 9 iyo year 10 ilmihii waa la kaxay. okay marka lagu sheego waxaad oran doontaa ilmihiias waa la kaxay. okay Soomaali maasha Allah dhulkoodii dhaqankoodii diintoodii waa good. xagga marka la geeyo maxaa la samaynayaa horta hadduu Ingiriis ka tegay maalinta Ingiriis u dambayn doona. hadduu Yurubtan kale ka tegana waa isku mid sidii aan la soo noqon doono horta bugta la tuuray. marka xagga la tagana kulley wixii markaa jira ayaa ay ugu horeyso diinta iyo khayrka. is good. sidii xagga marka loo joogo marka waxaa dhici karta ilmahan ka hadlayo la kaxeeyey inay iskuullada ay joogaan fasaladooda ugu sarreeyaan baa dhici karta. wayna dhacda badankooda. ilmihii marka 3 sano maqnaanaya. 3 markuu maqnaado wuu soo noqonaya. waxaa laga yaabaa inuu dhaho Leicester hadda kor aan ka guuray Birmingham aan tagayo. city council kala tagaa iyo application baa lagu bixinaya. 15 jir year 10 11 jir year 6 12 jir year 8 13 14 year 9 carruurta iskool baa lagu soo qoray. aragga markuu soo noqdo assessment baa laga qaadaya. assessment marka laga qaado 3 sano la soo dhaafay erey xisaab ma qorin oo erey Ingiriis ma qorin waan la soo celiyay. aragga top set-ka ahaa bottom set buu horta fariisanaya automatic. waayo carruurta uu la fariisan doono 3 sano la soo dhaafay waxbay baranayaan oo waxay lahaayeen assessment qiimeynay lahaayeen imtixaanay galayaan result ku joogaan meesha top set result lagu joogaa magac laguma joogo. anagii marka foundation buu galayaa niyadda ka xumaanaysa dhaqankiisa xumaanaya. hadduu year 11 ku soo noqdana ila guriga ma fadhin karo imtixaanka loo dalbayaa cunugaasi originally X A star buu keeni lahaa. Cambridge University buu ahaan lahaa carruurta ku calaamadsan. laakiin markaad adu kaxaysay oo aad hadda soo celisay wuxuu keeni doonaa grade 2 iyo grade 1. 4 sano kuleed ka wareegi doonaa. cajiladii horaan u duuba ku saabsanaa guruubyada qayb iyo group C buu galayaa automatic. diin hadduu soo bartay 6 wiil ugu horreeya ka tagaysaa. sigaar haddaanu cabbi jirna wuu cabbayaa.
adigana waa ku nacaya waxa laga sheekay 21 wiil oo xiran ninba iga sheekay 21 kana waxay dhaheen 21 ka iyagu Soomaaliya la geeyay GCSina maanaas ku dhacay ma samayn waalkiya mas'uulka waalid Umar marka arintaas waa aad baan uga fikiray aad baan uga warwarayay maxaan ku tiriyaa markii la sheegay soo ururiyay marka waxaan ku tiriyaa please and please ilmaha imtixaanadan soo sheegay samaynaya oo edebta leh oo wax baranaya oo dhaqaajin ilaa imtixaanka sameeya number 1 number 2 haddii aad dhaqaajisaan imtixaanada dhexdeeda ha ku soo celinina waxbarashada khasabka liista ha dhaafaan oo hadda iyagu odolti ah oo 17 balasa soo noqdaan waayo kuloojoogkaas waxay tegi doonaan sare waxay oran doonaan anigu UAU ma muutamo imtixaan ma gelin GCSE markaasaa la qiimayn doonaa laakiin haddii ilmaha loo cabsado diintiisa iyo naftiisa waa kis kale kaas badbaadin baa la yidhahdaa taas waxaa kaloo ku taliyay hadda wixii ka dambeeyey markaan taa arkay oo cunug Yurub ku dhashay kulley wuu soo noqon doonaa waxaan waalidka kula taliyay haddaad caruurta kaxaynaysaan oo ay dhaqotaba inaad kaxaynaysaanba buugaagta wadamada ay ka tegayaan la qaada wadan kasta caruurta dhigta jooga waxay leeyihiin anagu waa leena key stage 3 baa jira key stage 2 books baa jira key stage 4 la qaad wadankaa tagto ha kula socdaan waxaan shaki ku jirin oo aan qiyaasayaa in caruur badan soo noqon doonaan waayo wadamadan ayay ku dhasheen oo baasaboor ku leeyihiin arrinta ma didi kartaan marka mar hadduu soo noqon doonaba muxuu la soo noqon doonaa maxaa markuu taliyay buugga la qaadaysaa yeer aid hadduu yahay isagoo Soomaaliya jooga wax kale ha barto laakiin tuushin baad u qabanaysaa yeer aidkii baa la wadaysaa yeer 9kii baa la wadaysaa yeer 10 baa la wadaysaa yeer 11 baa la wadaysaa yeer 11 kuwa gaara Soomaaliya iyo Afrika iyo kulli imtixaanadaas waxa la GCSE baa la qaadaa ha soo galo yay dhicin ilmuhu intuu 16 gaaro inaanu waxba wadan arda khatarteeda leedahay hadhow saaqidi doonaa adaa kaxeeyay waa inaad alternative u diyaariso ta kale waa inaad plan 7 years minimum qorshe waa inaad ku baxdo caruurta holiday maaha warkoodu 2 sano holiday ligi soo noqdo maaha IGCSE baa la yidhahdaa annaga UK Soomaaliya waa ma lagu qaadaa baan maqlay Kenya lagu qaadaa meel kasta lagu qaadaa maxaan rabaa hadduu ilmaha 17 ku soo noqdo inuu ilmihii uu ka tegay yaanu ka hoos marin inuu ka ficnado maahay oo yiraahdo IGCSE baan wataa oo GCSE ka sarreysa diintana waa soo bartay luqadii Soomaaligana waa soo bartay anigu Soomaali baan ahay identity baan leeyahay dadka aan ahayn reer UK oo wadamada ka tegaya Scandinavianka shaki kuma jiro wadamada East Africa safaaradahoodu inay imtixaanada qaadaan shaki kuma jiro waxaan tusaale ka soo qaadaa jid highway aan fusheen idinkoo baabuur wata fiirso highwayga markaa dhexda maraysaan baa adu ka leexatay batroolaa ku leexatay waa seexatay kafeeda iska cabtay waa seexatay 3 saac fadhiday baabuurkii kula socday aaw wuxuu joogaa magaaladii aad socoteen highwayga soo fuulay Soomaa waxaa la mid ah ilmaha highwayga rag la fuushan oo laga dejiyay oo haddana hadhow la soo celin doono haddana oo la oran doono kala soo fuul highwayga soo fuuli kara highwayga soo ku fuulaya laga tagay raggiisii da'diisa ka tagay this what happens so inaad taa ka tagno way maxaa marka rabnaa ilmihii ka dejina highwaygii waxaa rabnaa inuu halkaa ka soo galo meeshu inta ka soo geli lahaa waa ilmaha inta dib la keeno siiro ka soo balaabay waa ilmaha hadda highwayga aad soo saartay laakiin haddaad soo diyaariso intaa maqan tahay highwaygii wuxuu ka soo qabsanaya xaggaas ma khasaarayo I hope inay la fahamtaan pointigaas marka taas waa so hadhow maxaa rabnaa markuu soo noqdo inuu toos u geli karo kuleej waan dhacday caruur gala saas marka maasha Allah aad baa loo amaanay weliba waxaa la ogaaday inuu ku ficnaadeen ku Yurub
oo garanaysa way dhacda practically way dhacdana Soomaaliya ku galay IGCC soo qaatay halkaana number 1 iminkana jaamacada galaa jira marka maxaa kula taliyay buugtooda u qaada imtixaanadii aad ka kaxayseen la diyaariyay ilmihiinu da'dooda Yurub aad ka wadeen yaanay iyo Mareykan yaanay ka hoos marin haddii ka hoos maraan idinka mas'uul ka ah taas waa mid taas point kale markuu yahay Maxamed Saalaxow annaga ilmihii waxaan u rabnay dhaqan alternative maxaa noo haysaa marka waa haddaad tiri ilmihii aan la kaxayn ilmihii dhaqankooda iyo diintooda see yeelaysaan GCSE markuu ku baaso kuleejiyo aad hal sano ka yaad rabto isagoo GCSE jeeb ku wata hay wadanka tago hal sano geelaa raaco dadka ka shaqeeyo waxa soo baro kuleejiyo iskuulada ka dhiga Soomaaliya soo noqdo isagoo mental disable soo noqonaya GCSE hore u watay kuleejku hore ka galaya intii uu ka sareeya uu ka garaad badan yahay wax buu soo arkay kuwa ka ficnaan doona jaamacadu aadaya kuwaas waa qaybta kale ka soo qaad waxa igu tiri bul Allah si Europe iyo Western ka ma soo noqonayo ma soo noqonaysa miyaha okay أنا جاي وحبرت عربي iyo xisaabo iyo Soomaali iyo diin iyo axkaan iyo kitaabo kale inta ma ku soo celin Malaysia gay Hindiya gay jaamacadaha Kenya gay Qaahira u dir Suudaan u dir balan kale u samay hadda isagoo shaado wato oo soo jira soo noqdo laakiin waxaan macquul ahayn inaan laba gid isku fuusho jidkan waxa rabtaa Yurub inay jaamacada galaan jidkan waxa rabtaa inay Soomaaliya jiraan oo wax ku bartaan iskeenayso alla sida aan sheegay aynaan isu waafajin arintaas warwar badan bay ugu haysaa aniga waayo practically baan ogahay أنا باير إلا من حديث اللي هو كان قاهرة لقى كاني وحن كل واقع بليز والدكي لحد وحارت تري مودس كاس قاهرة كعلم حدا في امتحان دني ما يريري قاهرة هيا سو جورا أنا ما جوي كرنا إلها أنا جنا قصو كورك علمي لو ما ينكره دولة أو شيء سادول السكول كورة سايد سكول كنا امتحان بودي ما امتحان كنا كنا أوش أنا هذا وهاي لا حرنا امتحان كذا وكذا كذا أنت هو هذا بناء كسو هاي كذا ليه بلوتك بعد وكوي ماذا استعملوتك بعدي كلاتكم تكايا كلاتكم حورنا يا وحي أن صبرت صومالي امتحان إيجا قاعدة هذيك كله شنت سرو مغنى وحي صبرت عيد امتحان وقاعدة ما يسوي امتحانك وحلا وقاعدة يا ودنك كاتك هاي سبعي لو قبرتي أريتاس إيموشنال واي تكست قلوبتي تعمريشا كداية بنا قرشا الله باهيه ترى الله باهيه تروي كاسنا وحن قياسية واردو دبك Soomaalidu waa amaana way dadaalaan laakiin waxaan ogahay go'aamadan ka sheekeynayo 90% dumarka gaara dumarka gaara markii wala yaalo in aragtina ku ciyaarin inuu aan ogeeyna ku ciyaarin we don't know and we don't know that we don't know maalin baan dhaqaajinayna waa dhaqaajinayna kadaay aruuraha GCSE-da qaadanaya ha qaataan hadduu ruulo ku dhaco hadhow yuu ku oran hooyadii baa GCSE-da soo kaxaysay faham waa baasi lahaa caruurta facay GCSE way sameeyeen anigu ma sameeyay dhicin walaaliyay dhicin waa ina u diyaarisaan waa ina meesha joogtaanna wadamada baasaboorada ka wadataan waxaan shaki ku jirin shaqaalaha jooga oo wadamadan ka yimi caruurtooda inay GCSE u dhigma sameeyaan shaki kuma jiro caruurtaadina European system bay ka yimaadeen wayna ku noqon doonaan one day saa madaxa ku hay ha u malayn in aad u soo fikirayso maaha facooda ka reebinina aan soo urusho
taladan kula talaya hadda idin sheegaya caruuraha masala baxaad family soo waxa waxay dhahaan waxaan year 5 year 6 year 4 wali waa yaryar GCSE ma gaarin waxaan rabnaa inaan dhowr sano aye waxaan kula talaya buugtooda u qaad syllabuskooda u qaada waayo waxaan ogahay anytime bay soo noqon karaan anytime markay soo noqdaanna assessment baa laga qaadaya ilmihii hadduu markaa gaab galo because inta uu ka maqnaa systemka gaabkaasi weligii waa ku jiraya laakiin haddaad la wadaan idinku waxbarashadiisa la wadaan ilma wuxuu noqonayaa systemyadii wadamadii uu ka tegana la socda waxana kororsaday oo khibrad iyo environmentigii iyo kororsaday buu noqonayaa taa marka waxay noqonaysaa inuu wax badan uu ka fiicnaan doono insha allah saasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo kolley khayr baan idin rajeynayaa waxaan rajeynayaa waalid badan inay wax badan ka faa'iidaystaan anigu waxaan qaldoon naftayda shaytaan baa shaqo ku leh waxaan wanaajiyana ilaahay hayna ku anfaco asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu